askanagado fayl guurto aan sharafta leh taariikhda Korea ka beegan ta 20 ka bilato sanadka 2024 barnaamijkii aan baqaado doon walin kormar doon beledka marka wali deeray wafda ku dareeray dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdigaas oo soo gaamiyay wasiirka wasaaradda warbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno kale wali garoonka diyaarado ee degmada marka ka dhawaay maamulka degmada iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose wasiirka iyo waftishiye meelasan seedan aan ku galowga halka guud ee degmadaas iyo guud ahaanba warbarashada gobolka Shabeellada Hoose wasiirna jahantiisu ka sugayay beledka marka harunta gobolka Shabeellada Hoose wali isu kulmo la qaado doona bahda warbarashada gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan beledka marka iyo salaamada bulshada qeybo jeeshal gadisan hadhow ku reediyo wasiirna jahantiisu tilmaamay in Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ku goonta horumaryoka warbarashada wayahay Dr. Mohamed Ibrahim oo kumida wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan dhinaca miiga aan qaabilsan uu sheegay in dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku goonto horumaryoka beero iyo salaamada xoolo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka uu soo warsi goonay si arlaadi media umurgaas ku duwan wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo adkaysi wal eraw wasaaradda cusubta hadda meel la aasaasay bilashanaad marka hadda afar bilooda jarta baahida shantan may buu ka warhayta dadkii nolol inka badan Koonfur Galbeed dadka oo reer Koonfur Galbeed nololiyo ma ka tiirsanaaytay baadiye xoolahaada fadhi beerahaada fadhi hawlkaas haada fadhi dadkii oo reer baadiye lama dhibaato ka dhiidi dhibaatada koowaad may buu dhibaatada oo nabad darrada haddii haada fadhi nabad darrada ku qoyti qabaa'ilka isdilaw ama nabad darrada ku qoyti hogaamiye kooxdii isgalaayeen ama nabad darrada socdo ku qoyti ururada oo argixisada intaasba marka may buu ma sheentay dadkii inta qaxan marka xaq iyo oo hana sahay hadana ma hanka ziyad wala raw isbedelka cimilada ma sheenay roobka laga falaayo oo onkoyan xokooyo sidii ka badanaysa ka badan onkoyo usoo lu sugaayay ba may buu may roob kooyo roob idabal kooyasa walaagas dhan marka may sabab dadkii inta baadiye xaq qaxan oo beledkii kooyan beledkii oo kooyanna baydhabo oo kale ma kunoola 700 kun oo dad oo baadiye ku kooyay oo beledkii hama in badi dadkii beledkii baadiye ma dhaaman iyaba marka hor rafaadsanayeen marka hadda marka ma kooytay okay walaaga hadda qahay waa baqayna dadkaan oo baadiye ka hayfadni dadka marka si baadiye ka haysid arimood iyo hay la sad dhibaato haysat hadii sad dhibaato wala goobada baadiye roob ko marka tabayaan dibku koowaad inko darog mayo wal adeeg ma jira wal barasho ma leh caafimaad ma leh biyo nadiif ma leh koronto ma leh wal adeeg jira ma leh baadiyo malka magaalooyinka meel 10 kilomitir injartiya anka jar adeeg tan lamaad may buu wala dakaabiyaasha dhaqaalaha ama infrastructure lanko neefjay hiraabti hamaal la faray beledka shansada faday beled oo saan dhawo suuq leh ma leh beledku si han baa fadina beledka ka dheer ma aan baahanya jida aan baahan jid ma leh hojid leeyna baabur masaarano jidkii daba shiridi فهمتي معها تنسيت على ما يبغى يسبدل كعملة مرك هدي يسبدل كعملة لنصوبي ولا لو أتكيسي أتكيسي ملك وذ مثلا هدي سنتكم والبلد هم به ولا شد مكيت سكران هو كذي الرابع كوي بيك قاله مرك ولا عسى أنت هدي لك شقة مرك دتكي أو بعدين روجي سميلي روجان هدي حتى أو دبعتك نيد ميل لك كرومة يهم بان يلا كشقة هاي guud ahaanna Koonfur Galbeed had 10 sano jarto 10 sano hadda la dhaafi walbada la qowday aan ka muhiimsan dawlad dhiska walbada ka mid ah state building eraw laakiin hadda horumarinta walbada la qowdan baahan horumarna may asaasan qofka bini'aadamka inta faqriga laga saaro qofka bini'aadamka ana walbada ay wareystan ka arlaadi media dad aragteen walbadan ha aragteen مثلا والدكي هو بأولادي سؤال أنسي كرن إسكول إنجي كرن دولد سوق ساعداس إسكول جيتن أونلاين أنت أبغى ميلو ليش ميلو سوالك اللي هو فلاس سومالي بقى هاي نه تربنا قهر ميلو أسو هريها قوتك كين هريها قوتك توبي تبقى هو أرجاس مركا وزارة ما أتا فيشن شيء ما أتا أم أركتدي جود ما أتا سيدي أو لان هرمري فادي نقول هرباديا سميليو روغان ميليو نكلام ولا هربادك هلايان ولا بدك هلان تنكلنا ولا يهاي سدان هاي حولها سدان هاي أبرهاي سدان سي أو لان هرمري فادي هذا حولها سدان هرمري نجاو تكنولوجيا كويتي قلوا كوي
مثلا neefka oo hal neef oo loo saado malka intii 20 litir aan geeyk la kamaal oo nin 20 saada 20 litir la kamaale malka aba beerta nafteed sidii hor la fala marka haddii horumarintaas oo la dhaho mechanization iyo technology ama qalabkii oo beerta aan baahnayd iyo qalabkii xoolaha aan baahnaay iyo qalabkii kalluumaysiga aan baahnaay iyo teknolojiyada dilashana nolol badan ka bedel karo bas baadiile man nolol beedkan ragaysa ku wala karo laana haddii reer baadiyaha ay hasaaran malal cunto fayl hasaaran wal badan waay marka Soomaaliya taas markii deeri doonta ayantaas oo la dhaho food security al-amn al-ghidaa'i la dhaho arabi ama way guultoodan sharafta leh qayb gudum barnaamijkaas deerin hatana ka dhawaado warbixin iyo aragti ku saabsan shirka beledka Muqdisho oo arlaadi media iyo ladoohan iyo aragti shalgadiisan ku arran anshuurta maamulka gobolka Banaadir iyo hakar rogen dadka ka dhagan gobolka Banaadir oo iska jiraan dadka amuuda islamida dadka nool ee gobolka Banaadir ka dhagan waano qaar kumida bulshada beledka Muqdisho oo arlaadi media ladoohan door layga qaado ilaahay hortiis cafisiga maaha wallahi waa idin kula xisaabtama xogaa dambigayga badan ilaahay idinku dusha idin saari doona runta idin sheega yaa u dacwoonayba wixiiba yani iyaga maamulka haya iyaga cashuurta aruurinayo marka maalin walba aan hadalnaa cid wax noo qabanaysa lacag iska aruurso laakiin bari ilaahay hortiis marqaati kaaga nahay meel aan naga galaysa male marka naarta galaysana oo ku fiirsanay war maanta hadaan guursanay adimaan ku soo sheegaa hadaan furay adimaan ku soo sheegaa lacag ma iga sii qaadee waxna feedbackna kaama hayo meeda lacag ka qaadeen qof aroosay lacag ka rabtaan cunuga la dhalaaq lacag ka rabtaan hadaan habeenka wada saaxanayna aniga xaaskayga lacag naga qaadee wax kale ma soo dhawo macluumaadna fariina u diraa tan waa iga fakatay 3 tan kale iga dhaaf bas waliba uu nognaa in dhawaan dawladda Soomaaliya ee rogti canshuur linka sawfaad asoo ka waajibaas qof walba Muqdisho rooga oo walgadada waliba uswalka gadada number emergency si taaslimada waliba jiray canshuuriyo qaadayaan maamulka gobolka Banaadir taasiito kumada banaan dawladda dhexe Soomaaliya iyadoo sidaasata oo dadka reer Muqdisho oo dul qaadayaan dibowka canshuurta tan dawladda dhexe iyo tan gobolkaba haddaba reer Muqdisho iyagoo la daala dhacayeen canshuurun tiro badan ee maamulka gobolka Banaadir tan dawladda dhexe Soomaaliya inay hadda canshuur kale la ka kordhi aqabad noocyo kanagada korta midad waa la canshuuray mid qabri ku jira waa laga la soo baxay wax walbaana lagu sameeyay marka agaasime hal su'aal aan rabaa inaan weydiiyo agaasime gudoomiyaha gobolka Banaadir ka soo bilaab ilaa adiga uu isku keen gobolka Banaadir degmo ku taalo oo xataa qashinka bishi ka qaadaan ma jira canshuur diyaar lana waa bixinayna laakiin degmo guri ku yaalo oo xataa canshuur muxuu qashinka free ugu qaadaan ma jira isweydii okay tan labaad soo artay war diinta ma ku salaysan in ummadda wax laga qaado ma xumee diinta ma lagu saleeyay ma isku fiiriyo culimada ma la tashateen waa maya waad seexateen waa soo toosteen waa soo minguuriseen waa la imaadeen imeen waxaan leenahay sidan sax ma aha madaalow maanta adaa xukunkan haayo bari adaa ilaahay hortaga mid ogow bari ilaahay hortiis marqaati kaaga nahay wallahi waa kugu marqaati furayna adiga maanta nolol fiican ku noolaaw gaari qurux badan ku soco guri qurux badan deganaaw lacag iska aruurso laakiin bari ilaahay hortiis marqaati kaaga nahay meel aan naga galaysa male marka naarta galaysana oo ku fiirsanayna xaqiiqada lagu sheegaa haddii kala culeyskan iyo dhibaatada maanta haysata naga dulqaad adiga gurigaaga ma soo hor istaagin shaqo isii kuma dhihin shaqo abuur anaa samaystay dhalinyaraan ahay ma tahriibin waddankaygaan aaminay 3 sano 4 sano dhibaato iyo burbur iyo waxaan ku jirnaa maanta waxaad la timaadeen haddana canshuura loo baahan waa la isdiiwaan gelinaa war maanta haddaan guursanay adimaan kuu soo sheegaa haddaan furay adimaan kuu soo sheegaa lacag ma iga sii qaadee waxna feedbackna kaama hayo macnaha shay oo guri la isku garaaci lahay oo qoys walba waa dhilaa ilmahaas meeqa waa shan 10 door soo aruuriye qof walba gurigiisa hortiisa lagu ganaaxo taasaa ka fiican inta macnaha kadibna magaaladan markii nadaafadeeda bilicda soo baxay kadib hana la sheeg maxay hana la diiwaan geliyo diyaarana maalinta canshuurana laga qaadaa meel kastana waa noola taagan yahay qalad aan u arkaa canshuurta hadee wax lagu qabanayo wadanka wax looga qabanayo waa ogolnaana laakiin wadanka waxba uga ma jeedo nin jeebkiisa ku dhacay waa dhibaato badan aan ku qabnaa wadankii magaaladii shaqo ma lahan dawladana marba canshuureen uu keenay mar meeda la canshuura la leeyahay mar la dhahayo nin inaag isguursanayo waxa laga rabaa canshuura laga rabaa haddana macnaha canshuurta la soo saaray waa canshuur dawladda inay soo saarto anaga ma diideyno macnaha waa ogolnahay laakiin wax qiyaas la rabaa $30 macnaha qofkii dhinta $30 laga rabaa markaan waxaan dhihi lahaa dawladda saan waxa ka bedesho tira badanaanta canshuurta gobolka Banaadir dadka shacabka Muqdisho awoodu Quraanayna iyo dhiibaanga taniyo waxa la hashi geel ayada cunta ayadaana cabaada
annagoo lacagta oo cuntooyinka ku cunayna iyo lacagta wax ku iibsanayno dulsaarkeeda ka qaalinayno oo lacagta oo sintiyaasha aan raacsiinayno oo beerkana xanuunaya haddana guddoomiya gobolka banaadir inta hadda wuxuu yidhi ogaada canshuurta gobolka banaadir gaara iitoo yidhi marka waxaan u moodaa dadkan niyow ilaaha u maqan dabcan markaan hadalka raaraadinayo meel loo carara ma jirto dadkaan ku carar lahayn waxaa samaynayaan ilaahay subxaana watacaala horta lagu cararaa laakiin dadkii annaga nidaamka horta uma aanan dhiibin qof aan dadka mas-uuliyiinta sheeganaya ama xildhibaanada ama waxaa lagu leeyahay qof wasiira meesha maraya nin xildhibaan qof aan mas-uul ka dhigina ma jirto sababtoo ay dadka hadda meesha jooga dhan markaa si u fiiriso waxaa mooda inay ka siman yihiin dadkan in wax laga cuno wiilka ajakis waa ogeydeen intay u dhawaaqaan ay dheheen ka hadal waxaan inaad adiga go'aansatay inaad aabbaha meesha kala baxdo afar beri kabacdina waxaa xigtay in la yidhi dadka ha laga saaro caqabado dhaqaale dalka ku jira daraadii dadka reer muqdisho dhiiba doonana canshuurtin tirada badan mase diida doonaanga meeshu ilaahay idin keenaa ilaahay asaa og laakiin marqaataa idinku naqanaynaa maalinta ilaahay wallaahi marqaataa idinku naa horta aniga nus doolar layga qaado ilaahay hortiis cafis iga maaha wallaahi waa idinkula xisaabtamaa xoogaa dembigayga badan ilaahay idinku dusha idin saari doonaa runta idin sheegaa nimayow saan naga dhaafo waa dhibaatoona mashruuc walba waa inoo keenteen waa idinku qaadanay meeda lacag ka qaadeen qof aroosaya lacag ka rabtaan cunuga la dhalaaq lacag ka rabtaan haddana habeenkaa wada saaxanayna aniga xaaskayga lacag naga qaadee wax kale ma soo dhowo maclumaadina fariinaa u diraa tan waa iga fakatay tan kale iga dhaaf bas waxay nagu samaynayaan inay dhibaato yihiin sababtoo canshuurta marka aad bixido in dib lagugu soo celiyo in looga baahan yahay iyaga way og yihiin marka yaa u dacwoonayaba wixiiba yacni iyaga yaa maamulka haya iyaga yaa canshuurta aroorinayo marka maalin walbaan hadalnaa cid wax noo qabanaysana ma laha marka waxaan waa weligeenba culayska reer muqdisho way sideen ina hadda inay sii sidaan dabcan way ku qasban yihiin sababtoo meel kale aadaan ma yaqaanaan usmaan cabdullaahi ismaanoska raadiyo iyo tv-ga arlaadi muqdisho waayahay guultoodana sharafta leh barnaamijkeygii koonfur galbeed intaha ka gebagabaa intuunu ku kulmi doona barnaamijkan barnaamij jehiga maysan lana kulan fayl ha dhawaado